marxin la maqlaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan shirkan ka soo qayb galo qiimaha leh oo beeshii hawiye ay isugu timid hadda wixii wadidiisa warkii oo dhan waa la sheegay waxa loo baahan yahay iyo wax walba waa la sheegay dad aqoon u leh waa tilmaamay waxaan ka bilaabi lahaa horta dadka Soomaaliyeed hawiye intee ka yahay tiradiisa intee ka yahay waxaa la yiri markii tirakoob markii la sameeyey boqolkiiba 38 dadka Soomaalida oo jamhuuriyadda ku nool waa hawiye waxa ku xiga dadka isaaq la yiraahdo oo boqolkiiba 25 ah waxa ku xiga dadka daaroodka ah ee jamhuuriyadda ku nool oo boqolkiiba 18 ah marka hadde waxa weeye 38 iyo 18 waxa u dhaxaya waad u jeedaan marka waxa weeye dadka majority-giisu waa hawiyuhu marka sida sharcigu qabo waa inuu majority-ga hogaamiya waa inuu hogaamiya hadda tirana waa leeyahay tayana waa leeyahay laakiin tawfiiqdii ayaa marmarka qaar wax ka jireen haddii maanta halkan lagu heshiiyey oo la isku raacay alxamdulillaah waa fursad timid oo maaragtay u ogolaanaysa hawiye inuu asagoo tiradiisa iyo tayadiisa ka faa'iidaysanaya oo beesha Soomaaliyeed hogaamiyo bulshada Soomaaliyeed inuu hogaamiyo waxa weeye marka aan leenahay hawiye kaliya nama deeqo hawiye waa inuu Soomaali raadiyaa ma garanaysaa oo Soomaali weyn asagoo ku raadinaya waa inuu midnimadiisa ku raadiyaa iyo kartidiisa iyo awoodiisa